kaliminta oo asigana mayga ah kaliminta rabaa inaan ka codsado maanso may ah inuu nala wadaago asigoo mahadsan. You put me on the spot, Auntie. MashaAllah. I know. Sababtoo ah Sadiq markaan dhaha waxay ugu soo dhacdaa adigana dhankii kale inaad ka buuxiso asiga dhankaan uga buuxo. Alhamdulillah masha Ilaahay suu ka keen. MashaAllah. I'm still working hadda waxaan qoray hal piece aan qoray bada wili waan hoshiisa wili waa ay socotaa bada inshallah can I tolaya marka. Okay. Somalia dalkan meelan isan aragoytan meel walba saato ilaadan dareerayan oo jidka dareerayan oo baaburka oo degdega wadaayan dalkan Soomaaliya ay dawladda baahan yahay dawladda weyte sanad walba sanadkan inta sanad walba inta wadan dalkan isdilooy ninkii oo hooga kaloo hoogwiina ninkii daarteel ku sadoy beerteel ku sadoy dalkan Soomaaliya dawladda weyte dawladda baahina dawladda baahan yahay dad yow Soomaaliya iska tashada meel kala ka amilan dagaalkan iyo buugan isan wadan kala dhaafa dalkan Soomaaliya dawladda baahan yahay dawladda weyte meel walba saato ninka afmaayla ka waran aba maxatiri la ka wadan dagaalkan inta badado ee dalkan Soomaaliya dawladda baahan yahay dawladayna weyte marka inshallah adi waxa saartaa waaye bara inshallah next time haddii aan dadka fahansiiyo calaashaan waxa waaye intii aan mayga waxba ka fahmaynin aniga kuma hadlo laakiin waan fahmaa wuxuu yiri dadkan wada socdo baabuurta saaran dhinac walba jooga dawladday u baahan yihiin may ku hadal maxaa tiri ku hadal waxa rabti ku hadal dawladda u wada baahana gunaanadkeeda waxay noqonaysaa Soomaaliya hal israaco dawladnimada deeqda dawladda u baahanahay Sadiq مامو دودو مية ترجمانا ترجمان لقى مرة وعلى قارة محل ما شاء الله أنا واحد استعي مامو she put me on the spot ترجمان بكديسة مركا ما شاء الله بارك الله إلهي بركة دمانتين وقتي نقالي وكمات سنتين runtii idinka naga garaadiyo garasho badan naga cilmi iyo aqli badan naga dadnimo iyo dadaal badan Ilaahay idin barakeeyo runtii arintan aad baan u faraxsanahay inaan waqtigeena la qaadano anigu kaliya maadaama ay kids ahayd waxaan rabaa hal su'aal oo runtii taariikh leh marwa inaan taariikhda ku sii dheeraado laakiin gabarba hadda ka hor su'aal waxay weydiisay ragga Soomaaliyeed marka su'aashii ilaahay hadda jawaab looma helin ragga Soomaaliyeed aan kamid ahay bay jawaabtii laga sugayaa runtii jawaab maanaan u hayno ilaahay hadda marka su'aashii baan rabaa meeshaan dad 100 qof ku badan ku jiro maansada su'aalaha ka soo hormarine maansadaaba su'aalaha okay okay marka 100kaas qof laga yaabaa inay jawaabti helaan mid kamid ah siba ragga gabdhuhuna ay maaragtay wax ku qaataan maybe marka gabadh iyada marka hore iska sheekeynaysa taariikhdeeda ka sheekeynaysa qofka ay tahay ka sheekeynaysa wanaageeda ka sheekeynaysa qabiilkeeda ka sheekeynaysa waxa soo dhan soo marka peer with me ila dulqaato waxay please dhaga ay amaahiya dameerka ay amaahiya dareenka ay amaahiya la dulqaato haddaan kuma dheeraanahay less than a minute or two aan soo dhameyn insha Allah marka waxay dhaxday waxay ku bilowday ruux gabar ah baan ahay iyo inan gashaantiya gurigayga mooye umaan hoyanin goob kale weli wiilgayaanahi garayskayga muu furin gosha iyo dhabtaydana weli ruux kumuu gamin guraac iyo danaysiga gaagaabsi maan baran guulaha ilaahay xarigiisa maangoyn quraankana had iyo goor gacantayda kama dhigo dadka qaar kama noqon hooyana ma gaasirin aabana ma gabin weli gedigoodna ma nicin
kama guurin dhaqankii hidihiina kama gurin gobonnimada sharafta leh weligees kamaan marin gobonnimada sharafta leh weligees kamaan marin raggu gabi ahaantood kaan galab isbaranaa weli gaabsi mooye iima soo bandhigin gur mid kastana gefkiisiyo dareenkiisa gubayuu ku gaboofad leeyahay ana garashadaydiyo garaadkaygu ima siin hantidayda gaarka ee ii gengeman weli god madow inaan dhigo hantidayda gaarka ee ii gengeman weli god madow inaan dhigo maan garan waxaan falay demigaan ka galay ruux ee layga dhigay godob maan garan waxaan falay demigaan ka galay ruux ee layga dhigay godob mana geysan eed weli hablaha gadayda ee guudka loo dabo waa layga gaabshaa hablaha gadayda ee guudka loo dabo waa layga gaashaa gaasir baan ka ah gunnimo ereygaas micnihiisa dad badan baa garanaya haddana way ku celceliyaan gunnimo anugu ma garanayo gunnimadaas micnaheedaba gunnimadu ma waarto waa geedi duniduye intaan geeri loo bixin nimayow geyiga idil golayaasha joogee dadka kala guraaye gooni nooga saarow gunnimadu ma waarto waa geedi dunidiyo intaan geeri loo bixin nimayow geyiga idil golayaasha joogee dadka kala guraaye gooni nooga saarow waxaan ahay gabooye ma i guursanaysaa waxaan ahay gabooye ma i guursanaysaa waa mahadsantahay hooyo aad baad mahadsan tahay gabagabadii joognaa hadda waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo maxamed weli hadaladii uu kusoo gabagabaynaya uu yiraahdo asne sheekh axmed jawari imaam yusuf hanad iyo kalamani waa idin soo noqonaya xaliimo insha allah gabagabadeena waa ku gabagabaysanayna iyo xamdiba waad mahadsantihiin maama dhammaan culummada gabdhaha activistayaasha dhammaan meesha ku jira iyo shacab weynaha ay dhegaysanayaba aad baan idin salaamayaa waxaan idin leeyahay qof walba oo maanta dhegaysanayay hadalladii qiimaha badnaa ee bulshada meesha isugu timid ay ka soo jeediyeen in uu baldib isagu u fekero oo uu qaato warqad iyo qalin oo isweydiiyo haddii ay waxaan aniga ugu dhici lahaayeen noloshaydu see noqon lahayd haddii anigu ay maalin walba sidan erayadan hadalladan laygu dhihi lahaa sidee buu dareenkaygu noqon lahaa haddii maalin walba lay dhihi lahaa gun baa tahay ama waxaasaa tahay lay dhihi lahaa sideen u arki lahaa dunida igu xeeran marka aad su'aalahaas isweydiisaan waxaa idiin soo baxaya ficilada xunxun foosha xun ka baxsan insaaniyadda bini'aadanimada islaamnimada soomaalinimada ee ah dhaqan xun oo society ay practice garaysay caadaysatay ku dhaqantay kuwa awoodda lehna ay hirgeliyeen maalin walba ood ku hadasho hadallada waxa aad qof nool oo socda aad ka dilaysaa qalbigiisa qofkaas ma dhiman laakiin wuxuu door bidayaa inuu dhiman lahaa kuma uu sheegayo oo kuma dhahayo dareenkaygu waa saas laakiin qalbigiisa wuu gubanayaa walaalkay saadid hadalka uu kusoo gebagabeeyey ee gunta macnaha ahaa
haddii aad u fiirsato kelmaddaas gunto af soomaaliga waxaa la dhahaa geedka meesha haysta ee hoose baa la dhahaa oo gunta qofku marka uu saa leeyahay wuxuu u fikirayaa isagoo inuu yahay laanta ama ubaxa uu yahay oo ka sarraysa waa separation oo isagu guntaas ku fadhiyo ayuu fikirayaa psychological thinking haddii aanu isweydiino qofkaas laanta ubaxa ah isu malaynaya isagu caqliyan waa noocee haddaan isweydiino waxaa inoo soo baxaya inuu zero yahay sababtay tahay wuxuu fahmi la'yahay geedkaas inuu yahay noole ilaahay abuurtay oo isku tiirsan oo isu baahan oo hal ah ayuu fahmi la'yahay maalin walba luqadda aan ku hadalno waxay inoo abuurtaa xumaan iyo wanaag doorashada laakiin qofkay ku xidhan tahay waxaan leeyahay shucuurta marginalizerka lagu sameeyey cirifka lagu tuuray cultureku cirifka uu ku tuuray systemku cirifka uu ku tuuray qaababka aynu u hadallo ay tahay subhuman inay yihiin waxaan leeyahay dhaqankaasi waa dhaqan foolxun caalamku meel uu maanta ka jiro ma jirto marka la eego habku aanu dhaqanno caalamku gaaladii baa waxay u doodaysaa qofka xataa ka fikir duwan ka diin duwan wuxuu yahayba in qofka bini aadamka as a bini aadam oo la dhaqmo way jiraan dulmi badan baa ka jira iyaga laftooda annagaba nagu hayaan oo muslim noo arkaan oo black noo arkaan oo laftigana oo disadvantaged groupska ku jira oo minoritiska xanuunka aynu maalin walba meelahan aynu joogno ee qurbaha aynu ku dareemayno ayaan guryaheena ku samaynaa annagu dariskeen ku samaynaa walaalaheen ku samaynaa kuwa inala dhashay ku samaynaa kuwa ilana midaba ku samaynaa kuwa ilana diinana ku samaynaa marka qof walba balitaad iska soo qaada adiga naftaada sidaa dareemaysid marka dhibaatooyinkaas ay kugu dhacaan si ka xun baan ku dhaqanaa oon samaynaa maalin walba waxaan kusoo gebagabeynayaa culummadu bulshada door weyn bay changegeeda ka qayb qaadan kartaa waddamada reer galbeedka haddii aan eego no kiniisadihii joogay change badan bay ku sameeyeen society ka bedeleen oo istaageen oo qaateen ideolojiyad ka duwan ideolojiyadihii ay xambaarsanaan jireen ha noqoto social reformska ha noqoto religionka qaabkii ay u approach garaynayeen ha noqoto cadaaladii ha noqoto waxaan rabaanaa culummadu inay istaagto oo ay ka hadasho waan ku celinayaa salaadaha ciidaha salaadaha jamcaha salaadaha la isugu yimaado salaadahaasi ee ummaddu ay meel walba isugu imanayso ay badan tahay waxaan rabnaa you make change inaad isbedelka noo horseedaan activistayaasha aqoon-yahanka macallimiinta iskuullada weriyaasha idaacadaha guud ahaan warbaahinta waa agents of change bay dhammaan noqon karaan waxaan leeyahay change deerka kama imanayo change waa anagu naga dhex imanaya dadkaas dhibaatooyinka aan ku hayno 70% they have invisible mental health disorders ma arki karo waxaan leeyahay walaalayaal waad ku mahadsantihiin fursadda aad siiseen inaynu isbedeladaas sii wadno oo aan noqono ummad progressive ah oo wax horey u socota oo wax bedesha oo tolerance leh inaan wada hadli karo oo arrimaha sensitive-ka ah aan u wada hadli karo oo isu dulqaadan karo oo dareemi karo meesha uu qofku ka imanayo assalaamu calaykum aada umahadsanta maxaa weli 2 daqiiqaan siinaya qof walba oo siiyo xaliima ma joogta intaan imaamada aadin waxaa rab inaa dhaho maanta dadka badanaa xalka waxay u arkeen labo oo ah diinta iyo in la isguursado labadaas maxaa rab inaa wax yar daliil ka sheego diinta muslimiinta soomaalida badankooda waa wada muslim historyga intaa wax soo xumaynayna muslim ahayn marka ma ahan in oo wax aan ku dhaqmaynin aan maanta dhan kusoo celcelino run ahaantii waxaa taas ilaahay sharciga bisaan kala bixi doono so insha allah sharciga inaa waxa jeclaan lahay lagu soo qoro sidii dadka xaqooda loo dhowri lahay tan labaadna in la isguurguursado okay
taas waxa u qaatay mataqaantiin bohol weyn oo rabtiin inaa plaster ku dhejisiin right wixii salkii iyo problemkii koobaad maba laga fikirayo mana laga hadlooyo intaas kadib waxaa ku dhameen lahayd to be honest shakhsi ahaan waa inaan iskugu naqanaa oo discrimination mase wixii dhan oo yasitaan iska wada jarnaa shakhsi qof walba ay kaliya iska jirtaa marka ogolaatay inaa haweenka la yaso mase qof kale diinteeda ku yastid mase qof kale midabkeeda ku yastid way ku fududaanaysaa marka inaad dadkii soomaalida dhexdeeda yastid right so yasitaanka dhan macala discriminationka dhan inaad si guud uga soo wada horjeesan hortakooda intaasaa rajeynaa insha allah aad u mahadsan tahay xaliima saa u jeedin waxa waaye adeer siciida noogu weyn xaliima noogu yar rag iyo dumar maxay hayteen culumadii cilmigii maaragtay diinta iyo maaragtay maadigii caawa la isugu yimid maasha allah tacaala taasna ilaahay mahad u sugnaatay xamda waxaan kaa horumarnaa subxaanad waa mahadsan tahay maba waxaan horta waxa waaye wax culturally deep rooted oo salka iyo baarka soomaalida uga jiro wax centuries old soo jireen maantayta laakiin bulshadii baraarugtay meelo badan oo aan soo marnay maanta ma joogno waxaan joognaa inuu qofku fikirkiisa ka cabiran karo inaan dadkii la kala sooci karin in laisdhex degay in laisku dhex jiro un markii lais waraysto lais haybsado markaas un ay imaan karto su-aasha qofka wuxuu yahay in la ogaado markii ama sharing iyo power sharing la sameynaayo doodaha aan qabnaa waxaa ka mid ahaa soomaaliya xor ma taha waxaa la yidhi sigistigii bay qaadatay sigistigii miyaa xoroobay ma waxaa xoroobay beelaha awoodda leh mase waxaa xoroobay beelaha manaha la haybsooco conclusionka waxay ahayd soomaaliya ma xoroobay sababtoo qof intuu xor noqdo qofna gumaysi kuma jiri karo marka waxaan u baahannahay meesha laga abaara inay tahay xornimo horta aan helno oo soomaaliya xoroodo sababtoo qofku wuxuu u xoroobaa fikriyan inuu fikirkiisa u cabiran karo maanta freedom of speech baa laga hadlaa freedom of choice baa laga hadlaa marka qofku waa inuu u xoroobo qaab kasta marka fikirka meesha laga ka abaara waxayba tahayba soomaaliya inay xorowdo kii xoroobay siyaasiyan wadankii waa xoroobay laakiin siyaabo badan oo social ahaan aan loo xoroobin baa jirto marka dhinacaas inaan ka abaaraan rabay aniga aan uga hadlo sheekh yuusuf khayr waxaa la qoro article aan qoraa jira aan hadda xusay 10 sano ka hor la yiraahdo Somalia silent segregation markaas dee naiif dhalinyaro iska ahaa aan dareenka cabiraayay maanta markaan fiiriyana aan dhawnay waxaan u qortay it was hurtful markaan dib u raaco laakiin maanta mature aan ahay weynaaday waxyaabo naam baa ku noqonaysa psychologically effects badan kugu yeelato laakiin waxa weeye markaan la qabsatid u doodid activist noqotid isbedel baa sameynaysaa laakiin hadda ma joogo dad badan oo labada dhinac loo baahan yahay in activismkaas uu socdo xornimana la raadiyo halkaasaan uga baxaya walaasirti aada u mahadsantahay tasmiin waan salaamaya mar labaad waxaan odhan lahaa anigu waxaan makaanad uu yiri waa wax soo jiray for centuries it's deep rooted it's systematic economic and in every other way waxaan u baahanahay inagu xanad uu yiri inaga inay naga bilaabanto sidii aniga habarniin baan kusoo wada hadalnay annaga we need to do better because dadkan iyaga waxa ka maqan waa just human rights aniga adigoo kale and we don't have the right to hold that and we need a culture change waxa u baahanahay waxa u waqti fiican baa lagu jiraayo transition alhamdulillah so activism annaga naga bilaabmo and then it goes long way hadda waxaa jira dumarka Soomaalida lead now organization la yiraahdo women cannot have rights ila dadkan xuquuqdoodii ay helaan cid kale xuquuqdoodii ma heli karto because waxay la tahay injustice everywhere is injustice to everyone so
waxaan odhan lahaa innaga hay naga bilaabato annagana hawsheena sidaa u sii wadno qofkii wax cilmiga lagu soo darsan karana waa inagii kulley idinkii ma jiraan waa inagii gebiga iyaguba waa responsibilityna wada saaran intaasoo uga bixi lahaa aad baad mahadsan tahay kalamindaan rabaa waxaan rabaa inaan xoogaa yar aan ku daro hadalladiisii hore oo ahaa yes dadkan qabiiladan qaar ka mid ah iyo way jiraan waxyaalaha maaragta xilligii islaafiyada la keenay way jiraan laakiin anigu waxaan aaminsanahay sheekooyinka noogala sheekeeya marka qabiiladan waaweyn ama la leeyahay ilaaha weyn iyagaa waaweyn la leeyahay ayaga naftirkooda sheekooyinka noogala sheekeeya waxaa ka mid a inay banaanka ka yimaadeen mid baa geed kusoo far yimid gabar buu meesha ka guursaday mid baa ku yimid socod so haddii xaqiiqda loo wada noqdo dad badan baa wada yimid oo sheekooyinka haddaan hadashaa waxa laga sheekaynaya aan qaadanayna waaye marka 2 daqiiqa qaado insha allah adigana kusoo dhawow kalminda waa mahadsantahay hawariya kulligiina waa mahadsantihiin I think you guys touched the great points markaan waxaan dhihi lahaayay horta soomaalida badankooda waxaa dhahaan dadkan waa la keenay wadanka doona lagu soo shubay meesha waa la keenay waxa waaye taariikhda haddaa ognahay dadkoo dhan waa la yimaaday wadankii nin oo meesha oo ku xuseen waxaas ma jiro but hadda tusaale ahaan haddaa kusoo laawano wadankan or for the most part the vast majority of these people that are maanta la dhahayo wadankan for example ahaan maalan walbo people remind me that you're not Somali can mati therefore you can wakalan dheeraysan yahay langa baadahay bilaa loo joogin markaan waxaan dhihi lahaayay we really have to be careful where we're getting our sources, especially like waqtigeeda akhrinaysa academia ahaan haddaa fiirisid Somali within the academia people that who call themselves intellectually conscious of supposedly there were people who were supposed to be at the front line speaking against this stuff whether that be marginalization, whether that be oppression, are the same people who choose to stay silent and are the same people who are writing a lot of the misconception a lot of people reading nowadays that kind of slave laga keenay that kan wiligood sana laga keenay kan iyo kan waxa waaye dadka hadana sidii aan inii kala sheegay waaye dadka wala kala baxa dad meeshooda wiligood oo degnaayeen jira dad oo wiligood meesha oo laga keenay jira dadna waxa waaye oo la keenay marka the vast majority of these people already been there about octane there was a time that kingdom or la lahaayay jubada hoose da imaadid waxa jira community la dhahayo heer Russia nasiibunta meesha ku dhashtay mar hore ayaan kala sheegay markaan waxaan dhihi lahaay Soomaaliya ina Muhammad Somali we really have to be conscious enough to and subconsciously itself too how I had that fear is that this issue runs in a deeper level waxa xalay bilawda maahan oo wax oo xalay bilawatay maahan ana marka waxaan dhihi lahaay dadka we have to reflect look at ourselves and then dhaqankii iyo diinta inaan ugu soo laawano waxa waaye muslimnimada muslimaan nahay iyo kanaan nahay and then at the same time walaalkaaga oo takooraysid walaalkaaga oo luqadii kula hadlo diinta kula hadlo dhaqanka kula sheer gareeyo waxa hadana takoorkii ka heeso markaan waxaan dhihi lahaay wallahi Soomaaliya diinta lagu soo laabto waxa waaye hadda inta amal North America joognaa maalan walba waxa leeyahay colonial oppression laga dacwoonayo oo Black Lives Matter kan iyo bilaaya meesha lagu jira but at the same time I'm back home waxaan ogahay dad oo waxa loo leeyahay adiga Soomaali metid waa loo taqoora socially economically a lot of these people that have been pushed away from the boundaries of Somaliness whether that be the identity wise whether that be socially markaan waxaan dhihi lahaay we have to be honest with ourselves not only that also we need an action hadal wax ma taro badan waa arkay dad oo la hadlay waxa leeyihiin I want to do something kan iyo kan lagu bari ka dambe dadkii meesha ka baxeen ma ba arkayso
waxaa loo beri loola hadlayaa maalintii kalena waa la baxay marka saasaan dhihi lahaayay arrintii arooska iyo wixii kale oo ku hadlayseen waan dhegeysanayay horta waxa waaye wallahi to be honest with you arooska iyo waxaas waa laga hadli doonaa laakiinse as of right now people need to understand that we're speaking about the survival of these people, the basic necessities, human rights. Like hadda ana ahaan hadda Soomaali ana aan tago wiligayga horta dalka ma ku dhalanin wiligayga ma tagin waxaan huwa hadda dalkaas hadaan tago oo liidhahayo adigu kana tahay maalan haween iyo maalan familka meesha joogaan we get call waxaana dhacay dada beer laga qaatay dada la dilay adeerkaaga la dilay haween iyo maalan waa maqalnaa marka waxaan dhihi lahaa aniga dadka Soomaaliyeed we have to come to understanding is that this shit is very real and it's very problematic. It impacts a lot of people's life. And then, as we say, oppression put a ceiling on people's imagination. The younger generation, that people coming from this community, they give up. Malan walba so hasusiya waxa laleeyahay adiga Soomaali matid kan baa tahay kan iyo kan baa tahay ilma yarka walaalkayga iga yar oo la hadlayay 7 sano jira malan hore wuxuu idahayay dugsiga oo asiga aadagto asigoo saas u yar waxa la dhahay luqadan ku hadlaysa waa luqad Soomaali ma ahan kana tahay kan iyo kan adi unuga saas u yar oo 7 sano jira ama waxaas laleeyahay marka wallahi it goes deeper level than we think. And then alhamdulillah it's great that we're having this discussion, but we have to look in a deeper level and reflect. This issue is not only socially and economically, but also consciously. Like as a lot of people, there's a lot of psychologists on this app. I myself too, I study neuroscience, and then my focus always been, the oppression, and then the impact of a subconscious, whether that be psychological level. I've been doing that. I'm new on the field. I'm a student right now myself too, so I can see like where a lot of these individuals on this room that we're talking about the impact that trauma, a lot of this is psychological damage, and I can see that in my own community when I see a lot of the younger generation even running away from the identity of Somaliness. It's not because they don't want it, but they've been pushed away, right? So and then wallahi, we really be clear. I think I'm repeating myself what I said, but that's all I have to say at my end. Marka waxaan dhihi lahay waa mahadsan tihiin idinka oo dadka meeshaan imaaday oo eriyadan ku hadlayaan marka salaamu calaykum asalaam marka afmaykana marka inshallah haddii afmay kale afmay marmar inaa aad turtaa jeclaa marka waxaan dhihi lahay for those of you guys interested in afmay inshallah Halimo and a couple of us are running classes every day, and then couple of the folks on this app, so haddaa baritid arabtid afka luqada mayga naftirkiisan balahjada marka you more than welcome inshallah marka ani xasuudi saasaan dhihi lahayay waa nii mahadeliye marka aad u mahadsan tahay kalaabkaas oo afka mayga lagu barto afkii hindo afkii hooya ku qoran kalaabka waa helaysaa saasaan ku tagaysaa inshallah taala aan naftakayga dhowr habeenaan tegay sababta aad u xiiseynaya waxaan ahay baaragta generation aaminsan dadkii lagu bilaabana afka Soomaaliga iskoolada in loogu dhigo oo aaminsan in ayaga la xastay maadaama may imxaatir uu ahaa in fasalada noogula wada dhigaan waarkay marka hadda dib u fiiriyo calaashan oo ka sii fikiro inkastoo laakiin si fiican u fahmo maadaama aan xamar ku dhasho ku barbaaro dadka la joogay alxamdulillah teeda kale taani magacayga shabsaad u jeedaan hadda akoonkaygi maanta iga xirmay qalad dhacay dartiis maadaama barnaamijka aan diyaariyay 5 saac isiisa akoonkeeda kaga jira aniga luul carraweega kulmiye magacaasaan wataa akoonkaygu wuu muuqdaa waad arkaysiin you can follow laakiin maaragtay ma ka soo geli kari ilaa maaragta ilaa ka jira laga hagaajiyo inshallah xamda soo dhawo waxaan ka wada kalminda maadaama ka horeeyay hadalkiisa laangaab ilaandheerna uu ku jirtay 2 daqiiqo isticmaal adoo taas la taabanaya inshallah kadibna maaragtay imaam Yuusuf ku xiji doona Sheikh Ahmed Jawari ku xiji doona oday abtigaya oo 70 jir ah hooyadii walaalkeed awogay wuxuu dhalay ugu weyn
ayaa 2018kii inanuu dhalay baa laga soo dooray ingiriiskeedu joogta deetana ninka guursanaya wuxuu kasoo jeedaa Guyana aniga lafteedu waxaan moodayay Ghana laakiin Guyana abti waan waraystay marka abti waayo ninkaasi suri abti Guyana ee dhul baa la sheegay markaasaan ku yidhi abti hadduu nin maxaa la yidhahaa qabaa'ishan Soomaalidu ay iska riixdaa kaasoo dooni lahaa ka war soo booda abtiga wuxuu yidhi abti cumaamada ragga ku dhex fadhiisanayo halkaa ka jeeni lahaa arrintaas waxaan idinla wadaagayaa runta markan kusoo wada dhowaano sidaa abtigaygaas hooyaday la dhashay cid la mid ah ayaa guryaha inoo wada joogta ama hooyo ha ahaato ama adeer ha ahaado ama aabbaha ku dhalay ha ahaado ama walaalka ha ahaado ama awowga ha ahaado ama xaaskaaga ha ahaado qofku doona ha ahaado this runs waxay bloodkeena ayuu waxaan la socdaa lidaraja uu gaadhay inay caqiidadeenna oo kale ay la mid noqoto dhibaatada heerkaasay gaadhsiisantay runta marka la doonayo anigu waxaan u arkaa awooddu inay midin ku jirto ilaahay subxaana watacaala markuu caqaa'idda dadkii yani caqiidooyinkeedu fasahaadeen uu duminayay mar walba qur-aanka waxaa laynagu tusaya ambiyada marka loo soo diro يعني وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون مركا لقول هو وحي إلهي دي سودتي حقا حفاعة إنك إلهي بحين يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهن ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن حق واضح ولقد كرمنا بني آدم وياه wixii aabayaashay noo soo sheegeen geed baa la iska soo raacayo qof baa bakti cunay mid baa halka ka soo wareegay waxaana awoodeenu waxay ku jirtaa ayaan u malaynayaa yani awoodeena isbedel aynu ku samayn karnaa waxay ku jirtaa inaynu ogaano in aabayaasheen iyo awowayaasheen iyo ayeeyooyinkeen ay dalaal ku sugnaayeen oo ay iska soo buuxiyeen waxaanan jirin oo dulmi iyo waxa weeyaan quursi iyo ilaah ka fogaanshiyo iyo fasahaad ay nagu soo wada kuriyeen awoodeenu waxay ku jirtaa inta aynu khilaafi karno aabaheen iyo hooyadeen iyo awowgeen iyo abtigeen iyo adeerkeen laqad kuntum antum wa aabaa'ukum fi dalaalin mubiin dalaalka intaynu ka soo noqonayno ayay awoodeenu ku jirtaa waxaan ku soo koobayaa hadalkayga bani aadamku wax kasta oo jaahil ka yahay uu ka cabsadaa imika kalendima intaan dhegaysanayay cilmi badan baynu ka korsanay hadalkaygii horaan ku soo celinaya dadka markaana aqoonin oo dhaqankooda aqoonin oo meeshay degaan aqoonin oo waxay cunaan aqoonin oo waxay ku labistaan aqoonin oo ciyaaraha dhaqankooda aan aqoonin oo siday isu guursadaan aqoonin oo keliya lagu sheegay dadkaasi way naga duwan yihiin isma guursano isma geyno isma eekin isma keenin weligaa waxaad kaga xidhnaanaysaa qoobad yar baad kaga xidhnaanaysaa damoraad indhaha furtid damoraad wax akridid damoraad dadka soo dhawaysatid damoraad dadka dhex gashid damoraad dadka hala cuntid damoraad dadka la shaqaysid waa damoor ay indhuhu ku furmayaan oo caadkii waalidka iyo awowga iyo ayeyda ay dulmiga kaaga saareen uu kaa feedmayo oo aad xaqa garanaysid laba mid un baad noqonaynaa inaan anagu waalidkeena iyo awowayaasheena ay yeesheen waxay soo aamineen aan lugta uga xidhnaano dad dalaal ku sugnaado ilaahay intaan tiisa ka leexano waxaynu isugu sheekeynay aynu raacno iyo inay noqono dad xora oo afkaartooda u xora oo aabahoodii hooyadoodii ayadood hadday khaldeen odhan kara waad khaldantiin waxan ma anzala allahu biha min sultaan wix ilaahay soo dejiyey ma aha meelay ku taalana ma naqaano in markasta isbedelku wuxuu ku xidhan yahay inuu ruuxu dhiirado inuu ka dhaqaaqa meeshuu joogo inuu u dhowaado wuxuu ka baqayo inuu macluumaad doono inuu wax akhriyo wax kastoo aad jaahil ka tahay waad ka baqdaa laakiin wax kastood indhaha u furtood akhridood ka ag dhowaato ya shalay waad la yaabaysa baa laga yaaba markuu qof afmaymay ku hadlo muxuu ku hadlaya talo yaa noo turjumaa adigoo liidaya laakiin maanta markaa dad afmay ku hadlaya ka ag dhawaatay ku baraan oo tiraa maxaa meesha ku haysaa balibara sidaa waxaa loo yidhahaa waad ka ag dhawaanaysaa taariikhdoodaad baranaysaa waad dhexgelaysaa isdhexgalkaasi markuu imaado ayuu isbedelku imaanaya awoodeenu waxay ku xidhan tahay hadba intay leegtay khilaafka aynu khilaafi karno aabayaasheen ama waxay noqonaynaa dad awowgeydaa yidhi ayaday baa tiri ku nool ama waxay noqonaynaa dad yidhaaha caqligaygan ka shaqaysiinaya aragtideydaan ka shaqaysiinaya aqoonteydaan ka shaqaysiinaya ima xidhayaan oo ima yani uma seekaysnaanaya awowgaa yidhi abtibaa ka wisbisay adeer baa beri ka cararaya waxaas aan ka fogaano ilaahay subxaana watacaala dad axraara buu inaga dhigay oo xor ah aan xorowna baan anigu idin leeyahay aad iyo dad mahadsantiin jazakumullah khayr Amazing. I always love listening to Hamda. MashaAllah, tabarakallah. Hamda. Allahumma barik. And Sheikh Ahmed Jori, so
بسم الله الرحمن الرحيم آد ما سكين ما يمغشين سفيعة خير الله يمسيو ضد أحباب أو أهل علمي عقلي حكمة يعاوي سوي بدي أو قوبتان كهطلي إلهي إذا بركة دمانتين أو نوغه رياض سعيد خير الله سيو إلى هذا كسوغارين حمدة أو marka loo eego aqligeeda iyo fahankeeda iyo maxaan ku dhahdayay anigu aan ku tilmaamay in ay 60 jir 70 jir ay tahay Allah barakeeyo gabdhaha culimada marka laga hadlayo malaha laguma daraan malaynaya waa qayb kamid ah rasuliyada aan isku hayno inagu hameen dhaweyd laba culimo ayaa u yeeray aniga oo markaa rabo in aan ka hadalno haweeneydu makaanada ay ku leedahay islaamka iyo bulshada muslimiinta iyo dhaqanka haddii arrintaas la fiirsan karo waan jeclaan lahaa runtii waa arrin aad muhiim u ah xidhiidhna la leh waxaan aan ka hadlaynay hadda laba kalmadood waqtigaan rabaa inaan idin beeqaaniyo marka ma raba inaan wadaadada mikrofon hadii loo dhiibo ma aamusan baa layidhi marka iga raali noqda waxaan maanta ka hadlayno arintay xamda sheegaysay ugu dambeysay inaa wajadna abaana waxaan aaminsanahay in ay tahay wax aastigii uu soo sameeyey wax aan la tacaalayno ee aan la kacakufayno ee aan la jabayno ee aan la warwarayno ee aan la waalanayno waxa weeye wax aastigii samaysmay shalay qaabkii loo dhaqmayay sidii loo fikirayay sidii la isku soo koriyay la isku soo rabeeyay la isku soo tarbiyay ayaynu maanta ku noolahay su'aasha isweydiinay marka waxa weeye wiilka iyo gabadha maanta da'da yar ama dhalanaya siday berri toola u noolaanayaan maxay berri ku noolaan doonaan siday u fikiri doonaan maxay goosan doonaan saas awgeed maalin hore waxaan idhi wax aan maanta goosanayno waa wixii kuwii inaga horreeyay inoo beereen shalay bal nagu beerta dib inta u fallo aan beerta wanaajina sijiilka soo socdaayay ay u goostaan midho fiican ay u goostaan macnaheedu haddaanan mustaqbalkeena aanan ka fikirin waxaa laga yaabaa in aan day to day unaan iska noolaano marka waxaan keliya odhan lahaa marka khayr allah idin siiyo ha ku jirto islaamka iyo diintani waxay u timiday inay bini'aadan ka xoreyso oo ay ka xoreyso addoonsi bini'aadan diintaas xorta inaga dhigtay walaalayaalow waxaan aniga soo jeedinayaa inaan baranno kuna noolaano su'aalo badan oo maaragtay muran dhalinaya ayaa jiro oo isweydiin lahow diinta halkee laga bartay yaa kuu keenay yaa ku baray yaa kuu sheegay qofkana sidiisaba waxaa sameeya iskoolka uu ka soo baxay madrasada uu wax ka dhigtay sheekha uu kitaab ka dhegaystay filosofka uu buuggiisa akhristay bii'ada uu ku dhex koray intaasaa qofka samaysa innaga marka 30 sano oo kale ayaa jirtay waxaan u malaynayaa kalendima in uu ka hadlay arrimo la xiriiro psychology trauma wasiirkii hore ustaad maxamed sidaas la eg arrimo la xiriira psychology iyo maskaxda iyo traumaga iyo qofka raadka ay ku yeelatay dhibaatooyinka soo maray marka waan soo kabanaynaa aniga farxad weyn bay ii tahay inaan idinka oo kale idinla joogo meeshaan oo kale aad baan idin jecelahay ilaahay ha idin barakeeyo mission ma leenahay ani fariintaan raba inaan idinkaga tawaato marka what is your mission risaaladaad maxay tahay adduunyada waa laba cisho ka tegi laakiin maxaad kaga tegi what is your legacy what you want to leave behind maxaad rabtaa in lagugu xasuusto hal arrin mar marka kusoo koobi oo dhacday zamankii nebiga calayhi salaatu wasalaam safiya oo xaaskii nebiga ahayd ayaa geeriyootay markaasaa magaalada waxaa ka dhacay madiino يعني برنامج محمود رأي لكن وحال الدريمة فقرادي مقالة مدينة قدام بناك صباح عجيب
isweydiiyey dadkan sidee yaa ku dabooli jiray wuxuu yidhi nebigu dad waxaa jira gacmo dhaadheer oo iga daba imaan doona gacmo dhaadheertaasi dadku waxay u qaateen physical in gacanta dheer waa gacanta wax bixisa waa gacanta maaragtay wax ka horgaraysa waa gacanta gelisa qalbi qof jabsan niyad jabsan farxad iyo raaxo farxadda iyo raaxada waxaan kusoo koobay النبي يقول عليه الصلاة والسلام من أدخل بيت مسلم سرورا أدخله الله يوم القيامة سرورا في قلبه قفك سية قف دباتيسا قلبي سفر حقري إلهي ما أنت قيامه كفرحنا وإلهي كبريا كل كان العاوين إلهي بركة وقت كان لك الوجري إلهي نغدي كويس كفرحية يوم القيامة سيدان هلكان عاوه كلني إلهي يرالي نغا أكو كلنا إن شاء الله تعالى رسالة دي إنه حاويان إن عدالة هي حرية هي معركتي إسلام نمو إن نقول الله لنو وعررنو وهلكنو كبلنو كهشينو عدالة دخل من قاري من سنين جزاكم الله خير شيخ أحمد جوهر هذا ومحسنته إمام يوسف من جوك لما دقيقة قاضي إن شاء الله تعالى وحواي قبل يجوبنا ودمين وينا ولا سقط سدو بسم الله الرحمن إن شاء الله هذا ومحسنته أذيك وراح دمان وشوذي إله سبحانه وتعالى بركاته أنا كل هرتا وحفظا ما أرنيه لكن سي وحن أرنيه عاو وحي تلوين بالسيء هرتنا قادنا عن مجتمع على أن تبقوا نقلنا waayo annaga waxaana safiiro ayaan nahay kalaab hoos waxaan kana safiiro maadaama safiirana bulshada kale aan safiiro ka nahay markii aan dib ula noqono oo aan gaarsiino bulshadeena ee la doonaya si markaasi xigmadaysan aan bulshada u gaarsiino aan waxaan ka saarno allahna aan bilowno gabadhii u horeysay oo markii la furay qolka ku fureysay waxay soo qaadatay waad garanaysaa ninka waad garanaysaa muxuu ahaa film fire-ka ahaa oo magaratay muxuu ahaa yes I have a dream marka anagana maanta we have a dream يعني in the next 20 years soo socoto wadankeena iyo waxa dhulkeena inay waxan oo يعني ظلmiga ah inuu ka zuulo insha Allah inaan aan bilaan halkankaasi ana wadna insha Allah ay la doonaya walaasheen tasniimna aad u maasan tahay Allah ku barakeeyo insha Allah fiican aad bilawday runtii waxa aad lagu faa'iideystay hawshan aan wadna yaan laga دال إن شاء الله ونحن معكم أنا معين أنا إن شاء الله علوم هذا بارك الله فيكم أنت سأرنا هذا ما تصنتها إمام يوسف إمام يحيى وحتى النجم قناة سجن معركة بفلو مساجد كوها إمام كأ وحواي الشيخ مصطفى تيم معنى كستو معركة سنين هبين كتلال سوق ليس إمام يحيى إمام يوسف وحي معركة أرمها قيسك ayaa waxaan wadnaa qaybtii afaraad ayadoo qaybo badan laga soo bilaabay hadda qaybtii waxa la soo dhaafay maaragtay qoyska wanaagsan sidoo u dhismaa sidee la isku doortaa isniintan hadeertan wuxuu noqon doonaa insha Allah taala la isguursaday ilmo intaan la dhalin sidee lagu dhaqmaa oo dhidibada lagu aastaa oo laba qof oo lamaana ah oo midooba loo noqdaa insha Allah aad baan idinkaga mahad celinayaa waqtigiina insha Allah شيخ يوسف شيخ مصطفى دي لها رالي أهو شيخ مصطفى أداي سؤال كويتيني كجوابتي لك هذا قبل دواية أديك لما دقيقة قاعدة كسو قبل كتبنا هذا وحليري ويرها حظ يلا دهنا وحقرضوا هذا ليري لكن كانوا هو يسوي حقرض كده بعد نص حرية والدعاء إمارة النقاضي هذا سعيد سين دونا إن شاء الله تعالى شيخ مصطفى سودو الحمد لله رب العالمين قلت الله سبحانه وتعالى بأنه ما دعلنا الحمد لله حمدا كثيرا وحواي meeshaan oo kale waa meel qiimo badan marka kuwa ka faa'iideysto oo fahma Allah inaga yeelo alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana marka hadalka dhageysigiisa wuxuu u baahan yahay faham kadibna wuxuu u baahan yahay fahamkaas inta wanaagsan laga qaato oo lagu dhaqmo marka waxaan aniga maanta ka fahmay meeshan haddaan si kooban u dhaho wixii aan fahanay oo maarta aan soo guraanudo laba shay kow in runtii dulmi inuu yahay aan isla khirnay kulligeen xadgudubka lagu hayo dadka walaalaheena Soomaaliyeed
wax aan dheernahay inaysan jirin kulligeenna maaragtay islaam aan nahay dad Soomaaliyeed aan nahay waxa ugu qiimaha badan ee Ilaahay agtiisa sharaf lagu leeyahay ay tahay taqwada alla ka cabsiga Ilaahay oo laga baqo subhanahu wa ta'ala intaas kadibna adduunyada qof walba dadaalkiisa iyo cilmigiisa meeshuu isaga isgaarsiyo unbu haddana qof aan qiimo ku yeelan karaa intaas baan isla qirnay waxaan kaloo isla qirnay oo aan isla fahamnay inay u baahan tahay in qof shakhsi iyo si guud aan dhammaanteen uga hortagno qof walbana inta ku aadan uu kaga qayb qaato oo markaa si guud bulshada aan u gaarsino annaga dhanna aan noqono safiiro marka waxaan kusoo gabagabeynayaa aayad Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo leeyahay waltakum ummatun yad'una ila alkhayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun na'am Ilaahay subhanahu wa ta'ala aayada wuxuu leeyahay hayni kamid noqdaan dadka khayrka ugu yeero xumaantana ka reeb marka arrintan waa arrin xumaana oo dulmiya oo xadgudub ah marka haddii aanu ka aamusno waxaanu la midnahay dhammaanteen sida xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamaya sida dad doon wada saaran oo kale subanaha tilmaam qurux badan buu bixi wuxuu leeyahay dadka waxay la mid yihiin dad doon wada saaran haddii doontu ay laba dabaq leedahay qolada dabaqa sare qaybta sare saaran haddii ay arkaan kuwa hoos saaran oo markaa doonta dulelinayo doontuna ay biyihii dhex samaynayso ay markaa ka celin waayaan kuwa kore ay dhihi waayaan waryaayo joojiya doonta inagoo dhan bay nala khalibmaysaa ama halisna gelinaysaa naga daaya oo doonta ha dulelinaya macnaheedu waxay tahay kulligood baa isla khalibmaya marka si la mid ah haddii aan qayb bulshada ka mid ah ama in badan oo bulshada ka mid ah aan aragno in waxa ay ku dhaqmayaan ay dulmi tahay qayb bulshada ka mid ah xadgudub lagu wado inteena fahamsan ee u aragtay khalad inay tahay haddii aan ka aamusno aamusnaantu waxay yidhahdaan silence is consent aamusnaantu waa raalli ahaansho haddii uu shayga aad raalli ka aamusto macnaheedu waxay tahay raalli baad ka tahay marka islaamka laga hadlayo maaragtay guurka oo kale gabar yar haddii maaragtay aabaheed uu bixinayo waa in iyada la weydiiyaa oo lagu yidhahdaa gabadha macnaha gabadheedna kale waa gabar qaangaar noqoto xilligii guurka gaartay marka haddii aabaheed laga soo doonto aabbaha iskama bixin karo inuu gabadha weydiiyaa raalli inay ka tahay marka hadday gabadha maya tiraahdo waa in laga daayaa haddii laakiin aamusta ka war macnaheedu waxay tahay raalligii ka tahay xishood baa soo geli karo marka si lamid ah hadday bulshadu ka aamusto xumaan socoto dulmiga ay raalli ka noqonaysaa I believe waxaan aaminsanahay waqti badan in aad runtii looga aamusay inkastoo laga hadlay laakiin ilaa xadkii la rabay loogama hadlin maanta marka waxaan ku jirnaa information age xilli macluumaadkii la isku gudbiyay ay sahlan tahay oo dee maanta aaladan ilaahay subxaana watacaala nisiye callama alinsaana maa lam yaclam baa ka mida clubhouse facebook oo qaarkiin kumanaan kun ay ku jirto oo ay ugu jiraan flow garayso haddii qof walbo inaga mida hal jumlad yar uu soo qoro uu arrintan u arko inay maaragtay khalad tahay oo la dhiirigeliyo qof walbo aragtay maalan tusaalihi haddaa anigaan bixiyo kale qof ehelkaaga haddii gabar salaasuka laga soo doonto inaad qayb ka noqtin gabadha ama wiilka reerkaas la siiyo oo aanan qabiil dartii loogu diidin wax yarood adiga yaraysanaysaa wax badan bedeli karo marka taas waa aaminsanahay intaasaan kusoo gabagabaynayaa anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan rabaa inaan ustaad axmed sheekh axmed jawhar aan mar kale u mahad celiyo runtii waa walaal shakhsi abaal weyn noloshayda ku leh waa mawduuc ay ka baxsan tahay lakin waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto wax markaasaas leeyahay sheekh axmed waqti ku dhow 10 sano haddaysan gaarin ku dhow ayaan wada shaqaynaynay oo wanaag aan ka wada shaqaynaynay dacwada habeenada ka mid ah uu hadal nolosheeda wax weyn ka bedelay ugu yiri marka waagaas jaamacad kamaan bixin inkastoo dacwada iyo wax badan wanaagan ka wada shaqaynaynay hadal igu dhahay waxay ahayd mustafa yaanan warqad xaashi yaanan lagugu maaragtay canaadib ama lagugu faanin oo waxbaro oo macnihii waxbaro oo ah shahaado la imo qualification samayso habeenkaas hadalkaas uu isaameeyey wixii ka dambeeyey alxamdulillah ilaa masterkaygii aan sameeyo marka waxaan uga haraynin oo hadalkiisa sheekh aan u daba socdaa muddo hadda mar dhow uu soo wacay haddana wuxuu yiri mustafa PhD ma samaysay marka maasha allah waa qof wanaagga la jecel dadka la jecel waana waxa islaamka lagu yahay nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam midkiin iimaan dhab ah lagama helin ilaa uu la jeclaado walaalkii waxa uu naftii la jecel yahay allah idin jeclaado kuwa walaalahood u dagaalamo oo maarta xaqooda u dhiciya allah inaga dhigo kuwa garab istaaga allah inaga dhigo nafteena aan ka bilowno dhammaantiin inta maanta meesha kasoo qayb qaadatay
wanaagii khayr baan ilaahay idinkaga rajeynaya واخر دعوانا ان الحمد لله يا ابا ما صنتها الشيخ مصطفى معها طبعا كاسن aniga waa ku xiriirsana Facebook baan isku jiraa inta aan ka faa'iidana qiimaheeda lama soo koobi karo ma hadii ha usugnaato tii hadda maadaama uu kala hoos ku soo biiray kitaab kulmiisa uu ku biiri doonaa insha Allah taala waana laga faa'iidi doonaa dad badan baa ii diro yiri keen Axmed Joori adaa yaqaano yihibo marka waxa ku waa Kenya moogta waxa rabay inaan nomination ku sameeyo laakiin ayaga iskeenayba alxamdulillah mawla Allah quwate maradu Axmed Joori bay soo gal khayr Allah si anaga waxa iskeen taamo magarnasa badi biya la waayo meel gaar ahay marka وانا شعب جبري انا برضه بقول لهم رحبا بمتقنا عن رتي ان كفايسني marka waa Allah barakay alxamdulillah adeer Saciid marka adigay ku joogtaa mayka ka soo bax adiga noo soo gabagabeynaya waxa dardaaran nooga tageysay adduunka aqal waxaan rabaa kalena idin sheego 3 saac u horeysay live Facebook ka baxayay dad baa duubayay oo darbigayga aan ayaga ka soo share gareeyay walaalkaas duubayna aad baan uga mahad celinayaa in wixii aan ku hadlaynay ay kayd noqdeen haddana asigoo cod kaliya ah duubaya ana video ka soo dhigay inta harsan oo wixii dhan waa noo duuban yihiin intaas maaragta dardaaranka aad nooga tagayso adeer ku soo dhawo insha Allah nooguna soo xir barakallahu fiikum aniga marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulka iyo akhyaarta halkaa ka soo wada qayb gashay ee aan u jeedo qadarkooda iyo maamuuska ay leeyihiin culimadeenna hadday tahay isaga dambeeyey hadeerto dhallinyaradii hadday tahay intii kale ee giddigood qof waliba saamigiisa ka qaatay hadduu yahay waxaan aad iyo aad ay ii tahay farxad weyn inaan idinkala soo qayb galo mawduucaas magarta qaayaca leh ee la fagurayay intii karaan yahay ta kale waxa ii sharaf weyn in laygu maamuuso inaan iyadoo ay caawa iigu horeyso barnaamijkeena kan inaan inoo soo gabagabeeyo taasina waxaan u arkayaa inay tahay maamuus gaara oo aniga weliba la iigu deeqay iyadiyo magartay uu kaasi ii yahay dhiirigelin iyadiyo ii yahay laabdoojin iyadiyo ii yahay inaan mar walba intii karaan yahay inta madxu ciidda ka sareeyo inaan wixii karaana soo kordhiyo inta haddaan halkaa kaga baxo waxaan olanayaa mawduuca aynu la faguraynay ama isla taataabanay ama aynu qadaadhigaynay ee doonaynay in halka uu maanta joogo aynu hore uga sii marinaa wuxuu ka mid yahay mawaadiicda ugu qaayaha wey marka la yidhaahdo ummad sidaabaa wax loo taraa mar walba waa in laga fekeraa ciddeeda ugu sii dacdaraysan ee ugu sii dhibaato badan ee aad ugu sii liidata hadba sida wax loogu soo qabto taa ayaa inta kalena kor u soo kacayaan oo meel sare soo gaadhayaan sidaas awgeed baan leeyahay yaan la moodin in arrintaa la bilaabay ama hadeerto halkaa laga sii ambaqaadaya ay tahay mid fudud oo la iska dhaafo oon haynoo noqoto mid aynu mar walba hiyiga ku hayno u guntano diyaar u nahay halkaa ka sii wadno sidaynu uga sii wadi karnaana waxa weeyaan iyadii aynaan ilaabina mar walba qorshe kanoo kale ah aynu samaysano oo halkii kasii ambaqaadno inaano shalaytuna halkaasaan joognay maantana halkaasaanu marayna macnaa waxa weeyaan haddii caawa ama fiidka kan ama fiidadogan haddii arrinteenu ay ku ekayd faallo hadday ahayd xog waran hadday ahayd dib ha la isugu noqdo qof waliba maarata ha isxisaabo oo naftiisa alla xisaabtamo tallaabada inoo xigi doontaa waxay inoo ahaanaysaa maxaa kasii durugsan oo taabasho leh oo tuujsimaad leh oo aynu halkaynu shalay joognay aynu maanta kaga sii taa dambaynu isku arki doonana waynaynu mid kasii durugsan uga sii ambaqaadnaa kolka arrinta tani waxay ku soo sida shuyuukhduna isaga dambeeyeen ilaahay ha ku ciseeyo ilaahay ha ka abaalmariyo intii kale oo dhan ka soo qayb gashayna ilaahay mahaddeeda ha ka gaadhsiiyo anigu waxaan kolkaa uun odhan lahaa aniga waxay ii tahay munaasabad gaara
inaan iyadiyo hadday tahay aan maanta cumri joogo aan si fiican ula jaan qaadayo dhibaatooyinka jira baahida dalkeennii ka taagan ummaddeenu waxa ay eeganayso himilada ay leedahay hanka ay doonayso inay meel durugsan gaadho aan mar walbana isu haysto kuna dadaalo inaan noqdo ka duruuftu si kasta ay haysato duruuftu si kasta u adkaato laakiin ka mar walba si buuxda ula jaan qaadaya ee maanka ku haya ee laabta iyo lubigiisa aanay marna ka suulin ummadiisaas dhibaatada haysata hadba intii karaa yahay uu ka qayb qaadanayo iimana suurowdo inaan ka qayb qaato keligay haddaanan garabkiina iyo gaashaankiina iyo soo dhaweyntiina iyo taageeradiina iyo maamuuskiina iyo qadarintiina caawoo kale igu maamusteen aanan haysan aad iyo aad baa umahadsantiin ilaahayna haynala garab galo hawshaa waxoon aynu ku dhaqaaqnay wasalaamu calaykum waraxmatullahi adeer saciid adeer aad iyo aad baad umahadsan tahay allah yaxafidak xabiib qalbi ilahay caafimaadkaada iyo cimri barakaysan ayaan ilaahay kaaga baraya bixawlika waquwati mashkuur aad iyo aad allah yaxafidak xabiib qalbi allah yaxafidak adeer waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa kalindima iyo xanad sida laabta furan ee ay qisaskooda oo bilaafin tara inoola wadaageen anigu shakhsiyan xamdi ahaan waxaan ka cudur daaranayaa oo raaligeli ka bixinayaa intaan arrintan iyo effectkeeda iyo saamaynteeda ay qulubta ku leedahay aan jahli kaga suganaa and I'm ready to educate myself from now on inshallah bi'idhni rahman and we all should be bi'idhni Allah al-wahid al-ahad and waxaan jeclaan lahaa narrativeka inaad la wareegtaan laysi soo hor fadhiisto representationku uu bato yacni keliya aanay dadka dulmiga waalidintood kusoo koriyeen ee qaybta ka ahayno keliya aana iyagu ka hadlin arrintan ee dadkii dulmiga ku dhacayna ay hadlaan oo aan dhegaysano oo wax ka barano oo qalin iyo warqad soo qaadano oo nidhaahno ereyadee baa dhibidinku ah narrativekee baa dhibidinku ah how can we educate ourselves yeah marka aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa xanad iyo kalindima anigu aad iyo aad baan wax idinka bartay thank you so much jazakum allah khair حمد آد بعض ما هتصنتها وحواي أنت أي حمد تري بان أنا أقول كل علينا وحواي إلهي ما هتيسي تخيل آد بعض ما هتصنتين إن تقول كسوق الشان ونلا شوكتان وسيد الله بحارن كعد نولا هذا الشان ولو جيت كانوا وحوا كان كومر كلا قبل لابو إن كتب إذين نمامو أذيك كيبا بنويمي حتى لو أسلق هذه دونا kala har ma jiro wasa isla socono insha Allah ta'ala meel nala tagtaba kan qoyska idin sheegayba waxa ka soo bilaabno mawduuca gabdhaha wax bartay iyo ragga miyaa loo kala sheekiyay waxa ku xigay gabadha cuntada inay kala sameeyay guuri u tahay hadhow taadana maxaa la isku doortaa guuri ugu dhaca hadda waxay u socotaa lawaaba la iskuulsaday intaan la siday ku dhidultaa kana saaba ku wadi doona insha Allah midba midka ku xiga hadii Allah uu dalo waayo dadku markay waxa wada hadlaan marka hadalka inta xataa maskaxdoodu qalafsan tahay wali aan soo jeedin xataa qulubtooda iska dhageystaan doodaheena iska dhageystaan ay soo fadhiyaan oo intaan duubno meel kasta la geeyo calashan dadka laabtooda isbedesho qalbigooda isbedelo hadalka luuqadu isbedesho kadib way fududaanaysaa inaan u dagaalano markaas annagoo isla jirna meelihii doorarkii kala maqnaa laakiin hadda waa gobol xaarid insha Allah ta'ala mana kala xari doono hadii Allah idmo intaas baan maaragtay marka kusoo gabagabo waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahad celiyo tasmiin oo maaragtay inta noo yeertay noo keentay maaragtay hadarta hogaankana saadiq tasmiin iyo aniga iyo maxay hayteen shamso oo maaragtay hoos koontadeedii siisay laakiin iyadu koonta ilmaheeda kaga jirtay oo hoos naga dhageysanaysa maadaama ilmihii ayna maaragtay magacoodii inay kor aan keena aan diidaynay aniga keegi maadaama uu xilmasay in hawshan u kala istaagin ayadu keedii ugu wareejisay waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa wariyaasheen maaragtay warbaahinta dadkii madaxda u ahaa mid taariikhiyan ah hoos fadhiya maxamed shiine oo kow ilaa dhammaad asigu mas-uulka ah codkii iyo waxaan ku hadalnay inay naga dhumin oo noo duubayay saddexdii maaragtay saaco u horreysana live ku bixinayay intii ka dambaysana maaragtay cajalad ahaan u duubaya maxamed shiine waxaan ku leeyahay aad iyo aad baad umahadsan tahay abaalkaaga ma gudi karno awalan waxaan doonaya qofka hibadiisa la siiyaa
waxa maanta hada kor qaadan anu adigu tiray waa maadsantahay laakiin aniguna waxaan doonaya inaan maxdeliyo inanka kala diima because haddaan maqlinayn isagoo hadlay oo qolka explain garaynaya narrativekiisa meeshan dibnaba joogneenba. So I want to thank you very much. Because of you we're here and because of you we're having this conversation, so I need you to know that. Thank you very much. MashaAllah, wallahi kulligiina waa mahadsan tahay waxawaaye salaanta kashiga laabtan igu soo diray marka kulligiina wallahi we all know that we need a change. waxawaaye wadankaas dalkaas intaas sano ayaan soo dhameeyey intaas sanadad iyo rafaad ka socday marka wallahi we all need a change but haddana waxaan idina kulligiina waa mahadsan tihiin aniga coming here itself sometimes it's very that confident just speaking about the issue too. It takes courage and it takes confidence to come here. So I truly appreciated that and I'm looking forward from now on having this discussion. The market, let me know whenever you guys have in the rooms or anything. But Assalamu only 20 years old. Oh, mashallah. كلمة خير الله كبيرة. حليمة waxay ahayd dadkii markii la sukaayo keenala joogay fikirkeeda saliimka ah baan maaragta ka helay waxaan dhahnay waa inaad tartiib gashaa meesha waxay tiri marka kalimiinta usii sheegaya wiilkii arrintan dub ay kasoo farantay so ayadaa kugu maqnayd marka dhammaan waxaan idin leeyahay maaragta wanaagsan jazakumullahu khayr habeen wanaagsan maalin wanaagsan meel aad joogtaba khayr iyo bashbash qolka hadda waa xiraynaa adeer saliid aad iyo aad ba madaxa iigu saarantaa khayr baan kuu rajeynaya waad ku mahadsantahay inaad maaragta caawa darteed usoo gasho clubhouse kaamadana waa kugu deganaa insha allah siiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا علي حسين ويلسقي يفصل مدري كشيل على حمر. dadkayga Soomaaliyeedu nidaam iyo dowladnimo ayaa kulligeena deeqda dadkayga Soomaaliyeedu nidaam iyo dowladnimo ayaa kulligeena deeqda waxaan idinka digayaa dadkanaan dhammaaniyo inaad dadkaygo isdishaan waxaan idinka digayaa dadkanaan dhammaaniyo inaad dadkaygo isdishaan ahma duugabaatili dagaal wiil kuma dhashee dagaal wiil baa ku dhintaa dabka holcaya demiya
dirirta colaada joojiya dabka holcaya damiya dirirta colaada joojiya dalkiibay dumisayo malyuun bay inaga disheen matida daryeelida darxumadiyo barakaca matida daryeelida darxumadiyo barakaca ibyaanlo ulabanine ibyaanlo ulabanine nabadda dorta oo adkeeyay nabadda dorta oo ayida dabka holcaya damiya dirirta colaada joojiya dabka holcaya damiya dirirta colaada joojiya dalkiibay dumisayo malyuun bay inaga disheen matida daryeelida darxumadiyo barakaca matida daryeelida darxumadiyo barakaca ibyaanlo ulabanine ibyaanlo ulabanine nabadda dorta oo ayida nabadda dorta oo adkeeya dadkayga Soomaaliyeedo dastuur iyo diin ku dhaqan ayay ku jirtaa dankeenu dadkayga Soomaaliyeedo dastuur iyo diin ku dhaqan ayay ku jirtaa danteenu waxaa iga dardaaranaa duruus cilmi barashayo inaad dadkaygu horumartaan waxaa iga dardaranaa duruus cilmi barashayo inaad dadkaygu horumartaan mahma dugabatili dagaal wiil kuma dhashee dagaal wiil baa ku dhintaa dabka holcaya damiya dirirta colaada joojiya dabka holcaya damiya dirirta colaada joojiya dalkiibay dumisayo malyuun bay inaga disheen matida daryeelida darxumadiyo barakaca matida daryeelida darxumadiyo barakaca ibyaanlo ulabanine ibyaanlo ulabanine nabadda dorta oo ayida nabadda dorta oo adkeeya dabka holcaya damiya
dirirta colaada joojiya dabka holcaya damiya dirirta colaada joojiya dalkiibay dumisayo malyuun bay naga disheen matida daryeeliida darxumadiyo barakaca matida daryeeliida darxumadiyo barakaca ibyaan loo ulabanine ibyaan loo ulabanine nabadda doorta oo ayida nabadda doorta oo adkeeya